ujeedada waxaa waaye waddankan waa waddan ilaahay nagu makaniyey Soomaali haddaan nahay da'dayda biriga wax yara ka nool boqolkiiba hal ma dhama waxa da'dayda oo ka nool waxaan isu kun yeeray beentan dalkan ku soo jirjir ilaa 60kii in laga leexdo ee runta la aado runtuna waxay tahay wixii anaka dan noo ah oo abni lagu helaayo waaye abnigaasoo ah macaash adduunyo imid aakhiro beentuna waxaa waaye fujuurkuna ciribtiisu waa cadaab iyo dhaqan xumo iyo adduunyo xumo runtuna waxaa waaye raaxo ammaankana waxaa u baahan ninkii dhalinyar ninkii duqa ninkii gaala ninkii muslima ninkii faqiira ninkii tanaada kulli ammaanka waa u baahan yahay beentuna waxay sii horaysaa wixii lagu jiro ka sii daran maaluba lagu tagayo intaasaan ku yeeray xaaji abuukar warbaahinta ood la hadasho waxaa ugu dambeysay muddo ilaa iyo ku dhowaad 15 sanadooda maxaa sababay inaad maanta warbaahinta hor timaad oo aad hadalkan jeediso bismillaahi raxmaani raxiim waxaa ugu sababa anigoo marka adduunyada ka faaruqa ay marka sida ii muuqata iyo idoo qalbigayga intaasoo dhan ku jiri jira wax aanay sheegi karin biriga inaan ka tagana idhabayso waayo waxaan ku yeeray haye waxyaabaha beenta ah ee aad tilmaantay oo muddada Soomaalidu ku soo jirtay goormee soo bilowdeen nooca ahaayeen yaa soo bilaabay waxyeeladii ay geysatay beentaasi bal dadka u faahfaah waxaa bilaabay 60kii markaan xornimada qaadanaynay waxaa la yiri xornimaan qaadanay islaam aan nahay islaamka aan ku dhaqmaynaa islaamkana waa laga jeestay kutubaha xafiiska dawladda waxaa ali jiray 60kii 4 inta ka horeed manhajka iyo kutubaha lagu xukumo ali jiray ka bacdina waa la iska laabay cadaalad xumaana ka timid iyo in been la sheego in la tooxsado xoolihii dadweynaha in cadaalad xumo lagu kaco in waxaan ilaahay raalkan la sameeyo in dawladii jirta markaas inqalaab lagu sameeyo in handana inqalaab ku sameeyay ay yiraahdaan qabiilkan duugaynaa qabiilkan la dagaalamayna wax lagu sheegana qabiilka ay ahaayeen ka bacdina dawladda kacaankeed handana tagto qabiil la soo wacdo qabiil lagu haleeyo wax kasta marka cadaalad xumadu ma haasay ka timid al'aan ku socotaa ninbana ninka ka horeeyo caaya ninba ninka ka horeeyo xamana ninka ka horeeyo waxana hadda xasan shaqal caaya waxaan ka baqa halka si daran inuu yimaado haddaan dariiqaas laga leexan dariiqa aad tilmaamayso marka aad leedahay hal la maro macne bal sidoo u yeelo sheeg dariiqa aan tilmaamayno waxaan dhahnaa waa muslimaan nahay inaan muslimana ku dhaqanno wixii muraad naga leh oo gaalaa oo waddankaayna dan kalena iyo koo gaalaa iyo koo muslim aan ku dhaqanno in muslim la yahay oo dhaqankiisa lahaayo iyo in gaal la yahay ee sida gaalku dhaqanka u doonto loo doonto lamada waxaan hayn oo xoolihii dadka la kala boobayo oo qof ammaankeeda haysa aysan jirin oo qof biriga qarannimo ka shaqayhaysa ee 6 madaxweyne looga yeeray Itoobiya waayo waxaan la joogo waa biriga inuu waa 6 madaxweyne ee Itoobiya iyo meelaha kale looga yeerayo laftoodu way soo socdeen bilihii ugu dambeeyay ama sanadkii ugu dambeeyayba maantaad ka hadashay ma xanuun xilligaas aysan kugu hayn oo hadda aad dareemaysaa jireen maxaa ku soo baxay ciilku waa yahay biriga waa la joogo waaye wixii been hoo sheegana aniga iskale iyo naftayda wax ka ahda waaye wixii run hoo sheegana intii mabda ka faa'iideystaan rajeeyaa xaaji abuukar dad badan oo ku yaqaana waxa laga yaabaa hadalkan maanta aad leedahay
inay su-aale iska weydiiyaan iyo siyaabo kale ay u fasirtaan maxaad leedahay dadka ay suurtagal tahay inay si kale hadalkaaga u fasirtaan ama siyaasiyiin ha noqdeen ama dhaqan ha noqdeen ama ganacsato adoo kale ha noqdeene maxaad leedahay dadkaas fasir la iska fasirtay iyo qof wax laga sheego waxay keenaysaa soo kordhaysa male haddaba laygama qabo inta badan fasir xuma iga qabaan waa ogahay xantiisa ma mooga xantiisa ma mooga xoolihiisa ma kala way aniga dawladda caladeerana waa la shaqeeyay 6 bilood waa la shaqeeyay anigu islaamka u janjeero alla igu xantaa maxkamaddii shaqaale dheere oo 98 dimiya waa la shaqeeyay وانا بربرتو بينانا بربرس بدي لحد بلودنا بينا بربرس او كو ودايا نفتوda isku lahayn way aniga waxaan sugayaa wax islankaas uga dhab yahay way nin geedka naga furo oo biriga ilaahay xaligiisa noo faran rujayna waxaad ku soo aadisay hadalkaagan xilli isbedel la filayo oo madaxweynihii afartiisii sanadood ay qariib tahay xasan sheekh lana filayo in doorasho timaado marka suurtagal ma tahay inaad ula jeedo waqtigan isbedelka aad ku soo beegtay tala bixintaadu aad leedahay isbedelka ha lagu keeno shareecada islaamka madaxweyne dalka ku maamula dabcan aniga qofan koontar ku ah male kursina anigu ma rabo nima anigu wato ama qabiilkeegana ma jiro ninka geedka laga furo oo biriga waxaanu oo marna cabsiya aan la shaqay doonaa lamada dhinac oo isdilaysa hadana biriga ay waa helaan ninkaas waxaa lagu arkaa waxaa dhaqanka wanaagsan lagu helaa in ilaahay kitaabkiisa loo naqdo isqa qabsigan iyo dawladahan gaalada ah oo beenta noo sheegaya oon ayu kuba rabin marna ma unuka diintahay qaadamayaan inaan jecelnahayna ilaahay sheegay 1430 sano ka hore ilaahay sheegay haa ulaa tuhibun wala yuhibun asayir anaka waa jecelnahay ikuna ma jecla anaka ma jecelin laakiin waa inaan soo bandhigan rabaan naftayda Abu Karhan inaan soo bandhigo inaan gaala jeclay iyaguna ma jecla ninka hadda Mareykanka u tartamay oo yiray Donald Trump oo magaciisa kaasan anigu dhacsanahay markii waa kuma sheegay kuwan madax waxa uu hadda daacis kilka loo taankaanta waa runtiis Obama keen ma jiri marka Ciraaq la duqeeyay oo Liibiya la duqeeyay oo Suuriya duqeey ma jira waxaan iyo ka keenay haddana islaamku korow si aada dilkan iyo cadaadiskan korow ku aadama hoos ku aadama waa gartay oo ko islaama iyo ko gaala aan dhaqano laakiin in ayku ka aqmal qaadano hanagala daayo waxaan rabaa xaajaga madaxda xaaj waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tiri nin ragii xantiisa ma mooga xoolihiisana ma arko haddaba aniga ima nabadgeliyaa tiri maxad ula jeedaa dadka u fasir bal ma wala xanta waxa soo yeela kaasa soo yeela waa alqaa'id waxa saleeyay asal igu xanta anu qofna ma dhibay wali waxna uma geysan laakiin waxay rabaa iska sheegaan dad biriga waxaan magan u nahay ninka geedka naga furo oo biriga islaamka ku dhaqameeyay oo gaalada naga baxday anu qofan xamaay xasan sheekh la xamaama ninka la xamaama qof la xakama rab madaxweynayaashan la sheegayo Itoobiya lagu yeeraan midna afaysa ma dalka mid afaysa maahan wixii ugu ra'yinaha soo baxaano ya isqarin ya afdaboolan dahab waa laga tagay ninka Donald Trump waa cadeysayna waa gartay waxaad moodaa inaad ku dhawaaqday hadallo aad u culculus oo maanta dadka ku keeni kara aragtidooda isbedel qaar badan oo adiga kugu aragtiya kuwana ay wax badan iska weydiin karaan haddii hadda ay soo baxaan la soo baxo ayaa tiriyo dadku ha cadaystaan aragtidooda afdaboolan dahab way dhamaatay haddii dad badan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaqaaqaan adiga iridaada soo dhoobtaan oo ku yiraahdaan na dhaqaaji maxaad samaynaysaa anigu wax dhaqaaji ma waana ogtiin waana u jeedin aan wax dhaqaajinay laakiin ra'yigayga iyo qalbigayga sidaasa ninka qalbigiisa waxaan afkiisa ka sheegay waxaan qalbigiisa ku jirana munaafaqa dalkana munaafaqa waa ka daalay nin waxaan islaahay siyaasiyiinta ama ka soo dhex baxa nin cadaysa kara warkaas oo la raaco haddaan la raacayna diintan ikraamayn ku raba aado laakiin yaan la isku kaan jacburin diin islaam diin kale ma isku darmaayaan waxa socda hadda olole ku aadan isbedelka oo oday dhaqameedyadii iyo ururadii bulshada iyo
haweenkii iyo la kala cararayo oo la leeyahay qayb kasta ay wax ordayso maxaad ka aaminsan tahay arrimahaas oo maxaad ka aaminsan tahay iyo odayaashan socda iyo waxaan iyo diaasbaradan ordayso rabta inay hilal qabata iyo see u aragtaa intaasoo dhanba maaha waan ka hadlahay intaas lanooma sheegin waxaan ku dhaqmayna ilaahay baa noo sheegay waan la ogyahay oday dhaqmeed uma yaal koonkan allah dastuurka soo dejaa u yaal kitaabka ilaahay u yaal umana taal oday dhaqan uma taal haween uma taal dhalinyaro uma taal odayaal uma taal ilaahay u taallaa ninka qaata oo asagoo dhulka qaadaan ilaahay kor u qaadaa ninka qaata ee asagan lagu dhaqaa ilaahayna kor u qaadaa dadkuna baari u naqaa taladaada ugu dambaysa marka maadaama nin la yaqaano aad tahay inta badanna aan warbaahinta hor iman taladaada ugu dambaysa ee ku aadan waxaan dhacaya dhinac waliba siyaasad ahaan dhaqaale ahaan soomaaliya saamaynta ku yeeshay 26 sannadood taladaada aad kula talinaysa qayb kastoo bulshada ka mid a waxaan kula talinaa wixii ilaahay unuka ma iskaan koonka mas Allah la keen allahna keen Allah soo nama keen allahina keena wuxuu ku dhaqmiraa idan idin aan rabaan dadkana taas anfacaysa xaaji abuukar cumar cadaan oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan kala hadlayay